jiilka soo koraya caalamka ayaa waqti badan geliyey samaynta waxyaabo aan horey loo arag si ay dunida ula wadaagaan aalado ugub ku ah fahamka dhalinyarada Soomaaliyeed oo u muuqda kuwa ka garaadsaday dhibaatooyinka lagu eedeeyo ayaa keenay inay alifaan fikrado shaqeynaya oo aan horey dhalinta ugu dhiirin jirin. Cabdulaahi Maxamed Cali Nageeye oo ah wiil dhalinyaro ah ayaa sameeyay baabuur taangiya oo aan horey noociisa qof Soomaaliya u farsamayn. Tangigan waxa alifay isla markaana sameeyay Cabdulaahi Maxamed Cali Nageeye oo ah wiilkan dhalinyarada ah laguma sameeynin Turkiga, China, Hindiya iyo meel kale ee waxa lagu farsameeyay Muqdisho oo Soomaaliya waxaana hal abuuray isla markaana farsameeyay Cabdulaahi Maxamed Cali Nageeye oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee markaasi bartay farsamada gacanta ee dhinaca biraha. sida taangiyada dunida laga isticmaalo oo kale iyo taangigan waxa uu leeyahay motor iyo silsilad uu ku socdo markana waxa uu ka dhaqaaqay goobtii lagu farsameeyay banaanka ayuuna ula dhaqaaqay Cabdulaahi oo ah darawalka iyo sameeyaha taangigaas. Soomaaliya oo ka burbureen kaabayaashii wax soo saarka ayaana weli jirin farsamadii gacanta iyo warshadihii xilli dunida dadka ku nool ay saacad walba ka fikirayaan wax soo saar hor leh. Cabdulaahi Maxamed Cali waxa uu ii sheegay in talaabadan uu kaga dayday wadanka Ruushka oo kamid ah dalalka soo saara hubka ugu badan ee caalamka yaala. waxaan igu dhaliyay waxay tahay wadanka Ruushka wuxuu soo bandhigay 70,000 oo taangi. annaga haddaan nahay dad Soomaaliya muslimiina malihin maanta hal taangiyo xataa la riixayo. waxyaabaha gaabiskaas ugu keenna waxay tahay annagoo danteennii gaar ahaaneed annagoo danteennii guud ka hormarinay danteena gaar ahaaneed. marxalada kala duwan ayuu soo maray ka hor inta aanan la dhaqaajin taangigan walxaha uu ka kooban yahay iyo waqtiga uu bilaabay samayntiisa ayuu ka waramay. wallaahi gaarigan waxa weeye juhdi fara badan ayaan geliyay dhowr bilood aan u samrahayay ayagoo markay dadku arkaan ay leeyihiin war waxaani maahan ii sheeg wax macquul ah iska dhaaf. marka baabuurkan wuxuu ka kooban yahay waa 4 lugood waxaan u soo qaaday haddana bokisyadii aan u jarjaray shinyeeri aan u sameeyay si ay markay lugta wareegsataba uu bokisku isu soo laabo hadduu isu soo laabaa. marka 4taas lugood waxay awood u leeyihiin marka koowaad inaysan bacaad gelin. marka labaad waxay awood u leeyihiin lagama yaabo horta inay banjaraan. tan saddexaad waxa weeye silisku markuu awood uu yacni tugmo waxaa jira meelo yar oo register laga saaro silisku uu isi soo dibcinayo isla markaas. waxaa jiro bokisyadan iyo biyaatooyin iyo waxay ka kooban yihiin motorkan u jeedaan iyo kambiye gadaal asaguna yaallo. marka motorka geerkiisa halkaana laga gelinaa laga geliyaa birahan waaye kambiyahana gooni waaye asagana geerar kaleeto xagga laga geliyaa asagana. calamada wadamada Soomaaliya, Djibouti iyo Turkiga ayaa lagu xardhay taangigan waxaana weydiiyay sababta uu ku doortay calamadan. wallaahi calanka horta Soomaaliya waa calankii aan u dhashay ee dalkayga hooyo. calanka labada garbood iiga saarana waxay tahay calanka Jamhuuriyadda Djibouti xaqiiqan waa dad walaalaheena dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Jamhuuriyadda Djibouti ma jecla inay ummadda Soomaaliyeed ay maalin qura ay aragto wax muuga ama tiiraaya ah. calanka Turkigana waxaan leeyahay waa dadka kaliya ee islaamka ee noo soo gurmaday maalinkii dhibaatada ay haysatay shacabka Soomaaliyeed ee aadka ay u tabaaleysnaayeen. waa awoodda kaliya ay maanta islaamku ku faano. waa quwadda kaliya maanta haddii qof muslim ah wadamo shisheeye lagu dhibaataynayo ninka kaliya oo ka hadli karaahay waa Rajab Tayyip Erdogan. Maxamed Sheekh Xuseen oo kamid ah waayijooga Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in la taageero dhalinyarada fikradaha hal abuurka la sameeya. waxaan aaminsanahay ninkaani inuu marka dambe soo saari karo gaadiid teknik ah ama waxyaabo dalka Soomaaliyeed anfaca oo looga maarmo dalalka shisheeye. sidaas darteed hadday dad weyne tahay iyo hadday ganacsato tahay iyo hadday dawlad tahay wax alla wixii maamul ah oo jira waxaan ku dhiirigelinayaa arrinta caynkaas oo kale ah inay si fiican wax uga qabtaan oo dhalinyarada ku maalgeliyaan. Cabdicasiis Ibraahim Axmed, TV Universal, magaalada Muqdisho.